Sadio Mane waa kuma xaguu ka yimid, dal ahaan xaguu ka soo jeedaa, kubadda cagta xaguu ka soo bilaabay waayihiisii nololeed. Waxaad aragteen isagoo u ciyaaraya kooxda Liverpool. Sadio Mane waa kuma haddii lagu yiraahdo waa ciyaaryahan u dhashay waddanka Senegal kuna dhashay magaalada Sadio. Mane ayaa waxaa la sheegaa inuu dhashay taariikh ahaan 10kii bishii Abriil 1992. Wuxuu ku koray tuulo yar oo ku taalla Mambali oo ku taalla koonfurta dalka Senegal. Wuxuu la noolaa reerka adeerkiis maadaama waalidkiis ay carruur badan awalba awoodin inay kafaalad qaadaan oo aysan dhaqaale ku bixi karin. Wuxuu u adkaystay yaraantiisii saboolka ahayd, laakiin wuxuu hamiyey himilooyin waaweyn oo mustaqbalka ah. Sadio Mane waxaa talo lagu siiyey inuu xirfadiisa kubadda cagta raadsado kadib markii uu arkay xulka qarankiisa ee qaab ciyaareedkooda ugu fiicnaa ka soo qaaday koobkii adduunka ee 2002. Markii dambe ayuu kulankiisii ugu horreeyay u saftay kooxda reer Faranse ee Metz. Ugu dambeyntiina waxa uu ku biiray kooxda Red Bull Salzburg adduun lacageed gaaraya 4 milyan oo euro oo ah kooxa kubadda cagta ee Austria ka dhisan. Wuxuu ku hogaamiyey inay ku guuleystaan Bundesliga Austrian iyo sidoo kale koobka Austrian Cup. Kadib wuxuu ku biiray kooxda Southampton waxaana lagu qaatay adduun lacageed gaaraya 11.8 milyan oo pound, halkaas uu ka dhigay rikoorkii sanadka oo isagoo jooga kooxdaasi oo dhaliyay 3 ugu dhaqsiyaha badnaa. Sanadkii 16 wuxuu u wareegay Liverpool adduun lacageed dhan 34 milyan oo euro. Tani waxay ka dhigtay inuu noqdo ciyaaryahanka Afrika ugu qaalisan waqtigaas. Mane wuxuu kaloo u soo ciyaaray xulka qaranka Senegal, isagoo ku caawiyey inay gaaraan quarter-finalka tartankii Olombikada ee 2012. Wuxuu u ciyaaray xulka qaranka koobka qaramada Afrika 2015, 2017 sidoo kale isagoo ka yimid magaalo yar iyo qoys sabool ah. Mane wuxuu adduunka tusay in ay go'aan qaadashadu ay kaga dhigi karto inaad wax walba ku guuleysato. Waxaa lagu naynaasaa Ballon-d'Or, waa ciyaaryahanka ugu qaalisan reer Senegalese. Haddaba markaad eegto ciyaaryahankan dulqaadkiisa iyo sidoo kale habka marka loo fiiriyo ciyaartoyda muslimka ah ee dunida kubadda cagta ciyaara, in uu kaga aadaa badan yahay xagga diinta Islaamka marka la eego. Ciyaaryahanka reer Senegal ee Sadio Mane ayaa wuxuu ka hadlay dhanka xididkiisa iyo sidoo kale bulshada uu ka soo jeedo. Wuxuu cadeeyay Sadio Mane inuusan u baahnayn wax raaxo ah inuu muujiyo, maadaama adduunyadu ay tahay waqti qariib ah. Sidoo kale Sadio Mane ayaa wuxuu muujiyey intii uu lacagtaasi ku ciyaari lahaa in uu siiyo dadka baahan. Sadio Mane ayaa wuxuu yahay ciyaaryahanka kaliya ee laga hayo "maxaan u doonayaa 10 Faris, maxay tahay 20 saacadood oo dheeman ah ama 2 diyaaradood, maxay waxyaalahan ii samayn doonaan aniga iyo adduunkaba, waan gaajooday, waa inaan ka shaqeeyaa berrinka iyo sidoo kale samafalka, waxaan ka badbaaday waqtiyo adag, waxaan ciyaaray kubadda cagta anoo cagacad, ma aanan haysan waxbarasho iyo waxyaabo kale oo badan. Laakiin maanta waxaan ku kasbado kubadda cagta, waxaan ku caawin karaa dadkayga," ayuu yiri Mane. Waxaan dhisay iskuulo, garoono, waxaan bixinaa dhar, kabo, cunto dadka saboolnimada ba'ani ku jira. Intaasi waxaa sii dheer, waxaan siiyaa 70 euro bishiiba dhammaan dadka ku nool gobolka aadka u saboolka ee Senegal, taasoo ka qayb qaadata dhaqaalaha qoyskooda. Sadio Mane ayaa wuxuu la hadlay bulshada dunida meel kasta ay ku nool yihiin, siiba waddankiisa. Uma baahnid inaan soo bandhigo gawaarida raaxada, guryaha raaxada, safarada iyo xitaa diyaaradaha. Waxaan door bidayaa inay dadkaygu helaan wax yar oo nolosha ay siisay. Ku noqoshada Senegal, Mane wuxuu maalgeliyey dhismaha iskuul ku yaala Mambali. Shaqada dugsiga cusub waxay bilaabatay ka hor xagaagan. Ciyaaryahanka u dhashay waddanka Senegal Sadio Mane, haddii habdhaqankiisa uu sidaani noqday. Haddaba markaan u laabano xaaladda dalkeena Soomaaliya iyo sidoo kale iskaba dhaaf ciyaartoyda Soomaaliyeed ma haystaan daryeel ama ay dadkooda wax ugu qabtaan waalidka ay ka dhasheen. Waa dhibaatooyinka waddankeena ka jira waxaa qayb ka ah ma haystaan mushaar ku filan ama ay wax kaga qabsan karaan. Ciyaartoyda kuwooda ugu fiican ayaa waxay ku qaataan horyaalada Soomaaliya inta badan 5 sano.
daawadaha qiimaha badan oo haddii uu ka cajab geliyo muuqaalkan waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe noo saartid like-ta sidoo kale inaad ku xirnaatid janaalka Masraxa Official.